بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Farxaan Maxamed Xasan. waxaan ku suganahay saacada imikada magaalada Berbera. waxaan halkan ugu soo gudbinayaa wadooyinka lagu guuleysto. bini'aadanka Ilaahay qof kasta wuxuu jecel yahay inuu guuleysto. qof kasta wuxuu jecel yahay inuu gaadho hankiisa iyo himiladiisa isagoo maraya wado kasta oo lagu gaari karo hankiisa. isagoo maraya wado kasta oo uu ku guuleysan karayo. bini'aadanka Ilaahay way kala duwan yihiin sida ay shanta qacmood ee aynu leenahay u kala duwan yihiin ay bini'aadanku u kala duwan yahay. shantina qacmood waxa ay sheegayaan guusha bini'aadanka. haddii aad u fiirsatid mid baa ugu dheer, mid baa ugu gaaban, mid baa dhexda, mid kale ku xigta, mid kale ku xigta. shantina qacmood waxay sheegayaan in adduunka lagu kala horeeyo, in adduunka lagu kala guuleystay, in adduunka lagu kala sareeyo. haddaba shantan qacmood haddii aan tusaale kaa siiyo, adigoo ah ka ugu gaaban, gacanta ugu gaaban oo ah suulka ama fariirada oo ku xigta, waxaad gaari kartaa ta ugu dheer oo ah fardhaxada. taa muhiimadoodu waxa weeyaan in adduunka aanay waxba ku xidhayn marka aad leedahay han iyo higsi. in adduunka aanay waxba ku xidhayn marka ay meel kuu caddahay. haddii aad dadaashid, haddii aad samirtid, haddii aad adkaysatid, haddii aad aqoon, cilmi, waayo aragnimo intaba aad yeelatid, waxaa suuragal ah oo la hubaa inaad gaadhaysid halka aad rabtid. haddii aad doonaysid inaad guulaysatid, waxyaalaha aasaasiga u ah waxaa ka mid ah inaad mar kasta ku xidhnaatid Alle, dabadeetna aad qaadid wadooyinka guusha. haddii aad doonaysid inaad guulaysatid, waxaa kow ka ah inaad yeelatid hankaas oo ka bilaabmaya halka aad jeceshahay.